السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كودي لولي أما كودي جولاي أيا لك سورتي لحدا صنع الصومالية حرمة القاتل إسلامية تانو حكوا داقة دولة الصومالية نية دولة التوان إن حريد وذا شقين وصمين أو وطن والبابو وطن كلا حفيز كوفردون أو تايوان كفردون ده حفيز هرجيسنا كفردون ده حفيز تايبي حريد كالعصوبة تاوان الصومالية موحوين إن تايوان قوسطي الصومالية أما الصومالية أي قوسطي تايوان بس وحوين حريد دقالة والله وضع فائدة وضع والبوكينية إنه وطن كلا الله وضع الشقية سياد سؤالان وجابنا لسعب برنامج كينا شحن السياسة ده كل سجال بقول كوبي سجال شكاية الصوماليين حرمة الدبوق سقاط الصومالية وحنا كل واقع الجونش تاجي صوتن كاسنا ودن بينا وصوماليين وحيا حي وطن وحرة عيدة حمودة نقاله هي سياسة ده تاسو كنت إنه وطن بدر حرير الصميصو حرير كدي بيولي صوماليين أو كانوا وطن بدر إن صوماليين إيش أما خاص أهوئها هذا بس سينوغا إنه حرير كان عصيبة تايوان يا صوماليين يا سامين توليه وإنه وطن والبا إنه يا تاريخ يسوحكوغانا صوماليين أو دعوة إنجليز كأفريقيا كل سجال بقول كوبي سجال شكل حرمة الدبوق سقاط الدولة الصومالية صوتن كيس سجال لا تكيس اللي يقدم بينا يدو تلنسي عيد يدا الدولة كشرتي نبتقري إنه ماشي كشرتي حاجة تايوان كوس دجال كيس كويه قبل عم يكون سجال بقول سجالي أفرطن كيو وكان إن دولة دي تايوان أو هاي مرتبط لو يقال Republic of China أو هاي دولة كاتوليسة China أي حوج أي كقاطي أما أي كلورتي أوروكي شيوعي هاي قبصدي وما هو كامنية تاسانا صابتي إن دولة دي China وطن كشرتي أو بحثي جزيرة تايوان إمي أمريكا دمبرا إلى بحث مجال تايوان كل سجال بقول كوبي تضباطن كي أياد قرمد الميدوبي أي كرسي تايوان كل هاي قرمد الميدوبي كوبي تلسي China لقى قاضي لونه ورشة وطن كلايرا People's Republic of China واه وطن كيمك الشيوعي China هسه وشيء تبين هو كامينيوم لبض وطن ومكد اكتيد سياسة أهان كحال هكذا دعاء لبقى رضوه كدول لكن واحد يسكسر ويا لبض وطن وفكر كأي لبض وطن أمسين إن وطن والبابعي دي سحروا هاي يسوون أطلي كرم مسيركم مديسة سومالان وحريرك يتهاون حريرك وقبل من لبض يكون يسقال كي أيا إمك أحمد أدو صور أسبوعنا صاير waxaana heshiis gaaray sanadkan February bi gaaray laakiin arrinka dib ugu dhigan ilaa bishan ilaa inta lama cadeyn karo waxa weeyaan arrinka xasaasiga ee China laftiga oo aad uga hadashay arrinkan waana ugu dirtay Soomaaliya in la sameeyo Taiwan oo ay sheegtay qayb kamid ah oo laga jari kareen 2015 ayaa dawladda China ama People's Republic of China ay ansixisay decree madaxweyne lagu ansixiyay sharci la yiraahdo anti-secession law kaasoo mamnuucay in Taiwan ka goodo xoogna u siinay dawladda China inay awood military ku gasho haddii ay Taiwan ku dhawaaqdo dawlad ama la aqoonsado dawladda Taiwan arrinkaas runtii aad u xasaasi ayaa laga yaabaa inuu yahay sababaha labadan dawladood ay Somaliland iyo Taiwan waqti dheer u siiyeen inay ka wada hadlaan ama ay uga fiirsadaan xiriirkoodani faa'iidooyinkii khasaaruhu keenaya haddaba haddii ku bilowno Taiwan wadan dhaqaalihiisu aad u sareeya GDP per capita ama dakhliga fardiga ee qofka Taiwanese waa 24,850 wadanka ugu dhaqaalaha weyn ee aan ku lahayn kursi qaramada midoobay waxa weeyaan wadan wax soo saar badan leh waxaanay aad ugu caan yihiin electronics-ka ayuu sameeyaa oo waxa kamid ah company la yiraahdo Acer company la yiraahdo Asus company Foxconn la yiraahdo iyo company badan oo u sameeya embedded systems ama qaybo kamid ah qalabada diyaaradaha iyo maraakiibta iyo gaariyaasha lagu sameeyo Taiwan ay u geeyeen wadanka Taiwan wadan dhaqaalihiisu aad u sareeya laakiin dhowrkii sano ugu dambeeyay dhaqaalihiisu wuxuu gaaray stagnation ama uu istaagay kobcii dhaqaalaha Taiwan uu istaagay taasoo sababtay inaan wadanku lahayn natural resource amida kale lacagta ugu badan Taiwan wax ku baxda tamarta oo ay ka soo waarido wadamada jaarka taasoo ku sababtay dawladdan Taiwan haysta ay hogaaminayso Tsai Ing-wen gabadha la yiraahdo hogaaminayso oo loo arkay in conservative tahay in dhaqdhaqaaq caalami sameeyaan ama ay xaq loogu baran strategy ah waana arrinka keenay in Somaliland ay noqoto meesha ugu habboon Somaliland oo ah wadan ku yaala geeska Afrika xornimadiisa ka qaatay 1991 dawladda Soomaaliya ayaa dhaqaale ahaan aan la mid ahayn xuduudda Taiwan waxa dakhliga fardiga Soomaaliya soo galay lacag gaaraysa 350
konton ama 357 sanadkiiba ku soo gaaraysa macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliland dhowrkii sano ugu dambeeyay waxa 1.9 bilyan ay sanadkii dawladdu soo inkastoo 2019 dhaqaalaha Soomaaliland uu kordhay 4.5 uu kor u kacay haddana dawladda Soomaaliland waxay sheegtay inay deficit ku jirtay in ka badan 350 milyan macnaheedu waxa weeyaan alaabta dibadda ka soo waariday iyo alaabta dibadda u dirtay ayaa kala badan waxaana badan alaabta dibadda laga soo waariday taasina waxa weeyaan wadanka uu wax soo saar lahayn ama wax uu caalamku u iibgeeyo aanay badan tahay in xoolaha la dhoofiyo kaliya 350 milyan lacagta ku dhaweeyay Soomaaliland deficit ku gashay waxa kale oo ay sheegeen inay inflationkii ama sicir bararkii wadanka 9% laga soo riday oo la keenay 4%. shilinka Soomaaliland inuu awoodiisii la kordhiyay in ka badan 120%. arrimaha marka eegtid waxa arkaysa in dawladda Soomaaliland dadaal badan ugu jirtay inay dhaqaalaha kor u qaado laakiin dhibaatada ugu weyn ee wadanka haysta waxa weeyaan wadanku wax soo saar ma leh alaabta caalamku u dhoofiyana way yartahay wax uu ka soo dhoofsado taasoo macnaheedu ay tahay dhibaatada ka imanaysa dhanka beeraha iyo dhanka kalluumaysiga oo ah hadday labada meelood Soomaaliland horumar badan ka samayso ay keenayso in Soomaaliland noqon karto wadan cusub oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan ee qaaradda Afrika xiriirkan cusub ee Soomaaliland Taiwan la sameeyay waxa weeyaan arrinka mid lagu xalinayo Taiwan iyadoo la xirfadii dhaqaalihii iyo le technique lagu horumarinay Soomaaliland una baahan wadan u baahan inuu dhaqaalihiisa ama wax soo saarkiisu Afrika gaara ayaa noqon karta mid hadii laga sameeyo ay xiriirkan mid wanaagsan noqdo Soomaaliland faa'iido badan u keenay Taiwan waxa weeyaan wadan ay aqoonsan yihiin 17 wadan oo kula kuraasi kula UN ta waxaana weeyaan wadan ay xiriir badan la leh caalamka intiisa kale xagga Soomaaliland aan wali wadan aqoonsanayn xiriir inkastoo xiriir wadamo badan caalamka la leh haddaba haddii ka eegno dhanka siyaasadda Taiwan ma aqoonsan karto Soomaaliland macnaheedu waxa weeye imika Taiwan ma aqoonsan karto Soomaaliland waayo aqoonsiga Taiwan ay Soomaaliland aqoonsataa way aqoonsan kartaa laakiin ma aha mid kursi ku siinaya qaramada midoobay laakiin waxay keeni kartaa in xiriirkan ay Taiwan Soomaaliland la sameeyay in wadamo badan Soomaaliland si gaar ah u eegaan wadamo badan oo garanay in Soomaaliland isweydiiyaan meesha dhacdo oo ah mid runtii aad u istiraatiiji ah oo ah meesha ugu badan ee dhaqaalaha badan ee caalamku ka goosho wadada maro ayaa ah wada ay Soomaaliland dhacdo taasana keentay in China ay si adag u hadashay in Soomaaliland xiriir la sameeyo waayo Taiwan hadii iyada laftiiba ay football ama saldhig ku yeelata ay ka soo gasho Afrika Soomaaliland waxay taasi keenaysaa in Taiwan ay dhaqaale ahaan ay ku noqon karto ladiga ama ay ku sameyn karto pressure China xiriirkan cusub ee Soomaaliland Taiwan la sameeyay waxa ah mid ay Soomaaliland aad uga faa'iideyso waayo xirfadda wadanka Taiwan oo labadii sano ugu dambeeyay noqday caafimaadka ugu wanaagsan caalamka ayaa keeni karta in Soomaaliland xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha xagga tamarta xagga warshadaha iyo xagga beerahaba ay wax badan ka faa'iideyn karto xirfadda iyo kobaca dhaqaale ee Taiwan taasina u fududayn karta in warshado Taiwanese ay ka furaan xafiisyo ka furtaan ama plants ka furtaan warshado ka furtaan Soomaaliland si ay alaabtooda ugu iibgeyn karaan Afrikada inteeda kale waxaana dawladda Taiwan ama madaxweynaha Taiwan shalay bisha afarteedii soo dhaweeyay safiirka cusub ee Soomaaliland u magacawday wadanka Taiwan oo ah Maxamed Cumar Xaaji nin la yiraahdo ayaa tagay Soomaaliland ay soo dhaweysay safiirka cusub ee loo soo magacaabay ee ka yimid magaalada Hargeysa soo dhaweynta ay soo dhaweysay madaxweynaha Taiwan safiirka Soomaaliland oo ay runtii ay isticmaalaan kelmadda ambassador haddii aad eegtid bartooda Twitterka waxay yiraahdaan ambassador Maxamed Cumar Xaaji ayay ku sheegeen bartooda Twitterka inay soo dhaweeyeen si wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxay taas ku tusay inay xiriirkan uu yahay xiriir runtii ay labada wadan ay aad u baahan yihiin xiriir ka sameystaan waayo Taiwan waxay u baahan tahay inay caalamka intiisa kala gaadho Soomaaliland bana wadada furi karto oo dhacdo maqar istiraatiiji ah Soomaaliland waxay u baahan tahay inay shaqaale la'aanta dhalinyarada la dagaalanto oo ay ka hortagto dhibaatooyinka dhalinyarada ka haysata oo shaqa la'aanta si kobaca dhaqaalaha ugu kordhana waxay u baahan tahay awood dhaqaale oo caawin karta wadanka Taiwan waxaan aaminsanahay inaan imika labadan wadan aanay is aqoonsan karin laakiin oo arrinkan xiriirkan cusub oo ah mid siyaasad ahaan labada wadan u keeni kara aqoonsiga mid walba dawladda
laakiin waxa hubaala in Somaliland ay noqon karto awood dhaqaale iyo awood saameyn ku leh geeska Afrika 10 sano soo socda haddii ay uga faa'iideystaan xiriirka Taiwan la sameynayso iyo xiriirada dadka wadamada kala sameynayso mid ay kaga saarto dadkeega baahida wadankana ku kobciso dhaqaale abuur badan ku samaysa taasina waxay sababaysaa in Somaliland ay noqon doonto wadan saameyntiisa ku leh Afrika haddaba daawada dad barnaamijkan aad ka heshay waxaad samaysaa subscribe samee like samee comment kana xaq oo soo ku qor waxa ku xigi doona barnaamijkan kaga hadli doona lacagta laga dhaafay wadanka Soomaaliya sababta loogu dhaafay iyo arrinkaas saameynta ku yeelanaya shirkan bisha 8 la qaban doona ee lagu qaybin doona ama lagu iibin doona shidaalka Soomaaliya fadlan ha iloobin inaad subscribe samaysid like na saartid comment kana xaq oo soo ku qor waxaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته